والله tartan aad u adag waaye oo tartamada gudaha oo ka dugan diyaar garow aad u xoogan ayaan ku jirnaa. goorma bilowday diyaar garowgiina aad ugu diyaar garowaysan tartanka Sekafa? diyaar garowgeyna hadda waxaan wadnaa waxaan meeshaan ku soo xaroonay garoonka jaamacadaha 7 bisha sanqad ilaa hadda wadnaa 12 beri meelaas ayaan wadnaa. Cabbaas maadaama aad tahay kabtankii kooxda rajada kooxda ee tartankaasi ku wajahan waa aankee? والله tartan walba la galay diyaar garow weyn ayaa la galaa rajada aan tartankaas aan ka qabno waxa waaye 100% inaan wax ka keeni doono insha Allah. hadda waxaad tababaraneysaan dhowr saacadood iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan soo wax adag ma wax adag waaye waxa hadda adkeysiga hadda sameeyay dhuti ayaa ku raaxaysanaysaa waxa inkastoo ay ku soo aadaysoon hadana ma jiifanayno waa sameeynayna waa ku qasbanahay maadaama aan tartan xoogan oo nagu soo fooleeyahay waa dul qaadanayna soo baxay isku aadka tartanka ka qayb galeysaan haddii uu soo baxay kooxyada ciyaaraysan isku aadka weli ma soo bixin laakiin tartanka in la qaban doono ayaa la xaqiijiyay ilaa 8 bisha waa gartay marka hadda diyaar garowgiina dabcan waa mid aad u adag dekadana waa la ogyahay oo laba xil ciyaareed ay ahaana horyaalka heerka koowaad ee dalka Soomaaliya ma la oran karaa sanadkan waxay sameyn doontaa wax fiican iyadoo la ogyahay in Soomaaliya hadda kubadeeda cagtu ay horumarayso la yaardo laba horyaal isku xigna ayaan Soomaaliya ka qaadnay Soomaaliya hadda haddaan baxno naadi u bixino waxaan u bixinaa Soomaaliya waxay naga filaysaa guul anagana waxaan u diyaar garoobin inaan meeshaas aan magac iyo suncad aan ka keeno oo diyaar garoobina waan ku rajaweynaa inaan wax ka keenin insha Allah sanadkan. Cabbaas dabcan aad ogtahay oo ciyaartoyda xulka qaranka ee da'yarta ayaa dhawaan guulo gaaray sidoo kale kooxda Banaadir ayaa iyana guulo gaartay inkastoo ay nasiib darro hartay ma la oran karaa kubadda cagta Soomaaliya hadda horumarkeedu waa wax muuqda wax muuqda waa ujeeda xabiibow markii si dambayso Soomaaliya way si bedelaysaa sportiga Soomaaliya wuu si horumarayaa marka anagana waxaan taas ayaa waxaan dhiirgelin Banaadir ee soo badisay ciyaarka under 17 ee guulka keen xagga anagana waxaan rajo aan ku qabnaa inaan guulka keenayno insha Allah waan ku rajaweynaa. Dekada waa mid ka mid ah kooxaha ugu taageeraha badan dalkeena Soomaaliya maxaad u sheegaysaa dhammaan taageerayaasha kooxda Dekada iyo kuwa Soomaaliyeed maadaama aad huwan tihiin oo tartankan aad u mataleysaan magaca Soomaaliyeed? waxaan leeyahay taageerayaasha naadiga Dekada meel walba ay joogaan waxaan leeyahay horta ugaareen oo aad ay u salaamantiin mid xigtana la'aantiina meesha ma soo gaareen waxaan leeyahay meel walba ay joogtiin hambali ayaan leeyahay.